kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada Xamaasa TV maanta waxaan soo booqanay beerta nabadda oo aan rabnay inaan kala qayb qaadano damaashaadka dufcadii ugu horeysay ee ka qalin jibisay dugsiga quraanka barashada quraanka kariimka ee Khalid bin Wali iyo isxaq wareysi intaas siir aniga waxaan ahay Anisa Cabdullaahi Umar waxaan dhigtaa madrasada Khalid bin Wali waxaan ka mid ahay ardayda sanadkan quraanka dhameysatay aniga waxaan ahay Ayaan Cad Maxamed madrasada dhigta Khalid bin Walid waxaan kamid ahay ardayda quraanka sanadkan aniga waxaan ahay Yasmiin Ibrahim Abdi waxaan dhigtaa madrasada Khalid bin Walid waxaan kamid ahay ardayda sanadkan quraanka dhameysay aniga waxaan ahay Madiina Yaqub Abubakar waxaan dhigtaa madrasada Khalid bin Walid waxaan ahay arday dhameysatay quraan aniga waxaan ahay Arfaat Maxamed Muqtar waxaan dhigtaa madrasada Khalid bin Walid waxaan kamid ahay ardayda sanadkan quraanka dhameysay aniga waxaan ahay Usmaan Yaqub Abubakar dhigto madrasada Khalid bin Walid waxaan kamid ahay ardayda oo sanadkan ahay Abduqani Muuse Ibrahim waxaan dhigtaa madrasada Khalid bin Walid waxaan kamid ahay ardayda sanadkan quraanka dhameysay waxaan ahay Abdulcasiis Muuse Ibrahim waxaan dhigtaa madrasada Khalid bin Walid waxaan kamid ahay ardayda quraanka dhameysay Abdi Ali waxa la yaqaanaa macallin Bisbaas waxaan dhigaa madrasada Khalid bin Walid waxa sanadkan madrasada Khalid bin Walid ka dhameysatay quraanka kariimka 10 arday 9 arday ayaan halkan ku imaan insha Allah hal arday oo naga maqan yahay cudurdaar marka insha Allah ta'ala maanta waxaan joognaa beerta nabadda waxaan waqti iyo farxad iyo la qaatay ardaydeeda oo dhameysatay quraanka kariimka waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala mar waliba ardayda in waqti aan la qaato waxaan u hambalyeeynaa inta quraanka dhameysatay madrasada Khalid bin Walid waxaan leeyahay hambalyo xafladan insha Allah ta'ala way soo dhowdahay bisha markay dhamaato 15keeda insha Allah ta'ala ay xafladda waxay ka dhici doontaa hoolka tuumo haddii rabbi idmo insha Allah